hadda waxaa dhacda dadku inay guryo qaaliya dhistaan dhirna ayaan lahayn hadda marka waxaa jirta caqabado ku gadaaman in magaaladu ay cagaar noqoto caqabadahaas waa caqabado ka imaan kara dhinaca bulshada sidaynu hadda ka hadlayno oo ah wacyigooda oo inay wax yeelaan mooyaane aysan waxba tarin godintuna ay garabka u suran tahay inay wax gooyaan un bay rabaan laakiin inay wax beeraan ma rabaan caqabadana waxa weeye kuwo cimiladu ay keentay iyo meesha aan ku noolnahay halka aan ku noolnahay geed walba kama bixi karo dhirta qaar baan ka bixi karin dhirta qaarna waa ka bixi karaa geedaha marka ka bixi kara waxay u baahan yihiin in loo dooro ee dalqabad kale geeduhu ka bixi karaana wada geed abaareed maahano roob la'aan iyo biyo la'aan iyo waraabin la'aan kuma bixi karaan in yar baa kaga bixi karta caqabada kale waxa weeye dhulka noociisa dhulkan hadda ay garowe ku taallo waa dhul cusbo ah oo dhagax ah oo maxaa la yidhahdaa geedaha qaarkood u diidaya inay dhulkaas ku baxaan waxaan aragnay geedo si fiican loo tallaalay la beeray laakiin markii ay xoogaa koreen oo qof joogiis gaareen haddana dib u dhintay sababtaasna waxay sheegaysaa inayan dhulka sii mari karin oo ay nafaqaday u baahnaayeen ayan ka heli karin xoogaagii la siiyeyna ay intaa ku laysteen ayaa ka muuqata marka taasina waxa weeye dhulka noociisa waxaa iyaduna caqabada ka mida biyaha waddankan biyuhu aad bay ugu yaryihiin inkastoo garowe ay nugaal ku taallo ceelashii dee hadda guryaha ku yaalay lama isticmaalo tuubooyinka magaalada la isticmaalaa biyihiina waa lacag qofkii marka wuxuu ka fikirayaa kharashka uu biyaha ku bixiyo hadduu dhir ku waraabiyo walwal kalaa sii gelaya xagga kale shirkadihii waa shirkado public private ah oo privateku uu rangareeyo badankoodana dowladaha hoose aan hoos iman sidaa darteed wadooyinka dhirtii ku taalay laftigeeda laguma waraabin karo sababtoo ah shirkaddii waxay leedahay lacag bay u baahan tahay mana ogolaanayso arrintaa waxay marka u baahan tahay arrintaasina caqabadahay ka mid tahay oo dhinaca biyaha ah mar walba biyuhu waxaa ka muuqda inay yihiin ciriir yihiin isbeddelkan cimilada hadda dhacayna wax badan oo kale uu soo kordhiyeyo roob la'aan baa badatay sidaa darteed caqabadahaasi waa caqabado jira waxaa kaloo jira caqabado kale oo ka imaanaya maxaa la yidhahdaa bulshada dhirta lagu beero badanaa dhirta hadda laamiyada ku beeran waa dhir dowladdu beertay geedkii in la beero la nafaqeeyo bir la geliyo la waraabiyo ilaa uu weligiisba dowladdu gacanta ku hayso wax aad u adag wey waana wax hadda maaragtay hawl badan loo galo iyadoo intaasi jirto ayaa qofkii gurigiisa uu ku beernaa ee isagoo geedka manaafacaadsanayay oo inuu u koro ay ahayd oo uu ilaashado ayaa wuxuu samaynayaa hagaardaamadaysi buu ka qayb qaadanaya qaarkood dadkoo dhan ma waxay samaynayaan biyo oomalay ku shubayaan biyo saliidlay ku shubayaan qolyooyin bay ku shubayaan waxay samaynayaan baabuur baa ku dhacaysa way iska fiirsanayaan ari baa cunaya waa u jeedaan carruur baa jaraysa waxba kama qabaan bulshadaasi geedkaas wax macnaa uguma fadhiyo marka bulshadu waxay u baahan tahay in qofka la fahamsiiyo geedkan gurigiisa ku hor yaalla inuu isaga intifaacu yahay isaguna leeyahay geedkuna wuu ka qiimo badan yahay mararka qaarkood qof lacagtiis ka badan baa ku baxda kharashka gelaya caadiga waxaa la rabaa marka wax in la ilaaliyo baabuurkii ku dhaco cararana kama daba tegayaan taarika ka qorimayaan waxba maaragta uma arkaanin sidaa darteed bulshadu waxay u baahan tahay isbeddel iyo wacyigelin in lagu sameeyo waxaa jira iyaguna xoolaha magaalada lagu haysto magaalada waxaa lagu haystaa xoolahaasi inta u badani waa ari waxaa hadda soo bilowday oo hadda aan ku aragnay geedaha cuna geel waxaa jooga dameero waxaasoo dhan wax magaalada badanaa laga anshaxo maaha haddii xoolaha la xerayn lahaa haddana la soofin lahaa wax dhibaato ayna kuma hayeen dadka haystaana waa manafacadsan lahaayeen waxay ka dheefaanna xalaal bay u noqon lahayn laakiin xoolo badan oo lambar dheega lagaga buufiyo magaalada lagu sii daayo oo dhirta xaganaya oo sawirrada aan ka helnay haddaan idin tusno aad yaabaysaan ayaa magaalada ku jira isku day baan samaynay sanadkii hore muddo markaan wacyigelin wadnay qayb baan ka saarnay
laakiin xilli abaaraa dhacay intii dambe waa ka saari kari weynay maadaama meel la geeya ayay jirin dadkiina ay maxaa la yidhaahdaa ayan qaadan talooyinkii aan siinay ahaa xoolaha inay soofsadaan oo xeraystaan ma ayan qaadan in badan baa weli magaalada lagu sii daayaa dad wanaagsan oo badan oo xoolahooda soofsadaan oo xeraystaana waa jireen